wax badan ayaad maqasheen haamo waaweyn oo kusoo caariya xeebaha waddanka Soomaaliya. haamahan ayaa inta badan kasoo caariya meelaha xeebaha ay ku teedsan xeebta dheer ee Soomaaliya, goobahaas oo ah goobo tuulooyin iyo magaalooyin yaryar oo xeebta ku yaal. ninkan oo ah dadka ka kalluumaysta xeebta ayaa sheegay in haamahan ay hadda meelaha qaarkood ay kolba kusoo caariyaan, wuxuuna sheegay inay qaarkood bololeen oo ay daxalaysteen. waxaanu sheegay qaarkood inay daadinayaan waxyaabaha ku jira ee sunta. wuxuuna sheegay dadku inay cudurro hadda ay qaadayaan aan la garanayn. markii ugu horreysay taariikhda ayaa ahaayad weyn oo qaabilsan dhinaca kimikada iyo baaritaanadu waxa ay ka bilowday bal Soomaaliya inay baaraan haamaha waxa ku jira, inkastoo ay hay'addu qarsoodi ka dhigtay oo ay qarisay warbixintii ay ka samaysay haamahan. haddana waxaa la sheegayaa hay'addu in ay dahaartay oo keliya haamaha, oo ay ku dahaartay waxyaabo ka samaysan waxyaabo kala duwan oo ay ku dahaartay haamahan. waxaana la sheegayaa inay u diiday oo keliya inay daataan oo waxyaabaha ku jira ay daataan. hase yeeshee hadda ayaa la qarxiyey oo khabiirkii ugu weynaa ee hay'adda aan watay ayaa qarxiyey oo sheegay sirta. waxaanu sheegay khabiirkan oo u dhashay waddanka Jarmalka. khabiirkan oo lagu magacaabo Andreas Bernstorff ayaa sheegay in waxa uu arkay ay ahayd wax uu la yaabay. waxaanu sheegay in dalkii Soomaaliya badiisii iyo dalkiiba la sumeeyey. waxaanu sheegay in iyagu ayba ku dhiiran waayeen inay haamahan qaadaan. waxaanu sheegay inay dahaareen oo keliya. hadda ayaa la sheegayaa in cisbitaalada Soomaaliya dadku ay la ildaran yihiin cudurka kansarka qaybo ka mid ah oo hadda Soomaaliya aan hore uga jirin. gabadhan Luul Maxamed ayaa sheegtay in hadda dadku ay la ildaran yihiin cudurka kansarka. waxaana sheegtay inaysan awoodin dadka inay la tacaasho, waayo ma haysan ayay tiri qalabka radioterabiga iyo chemoterabiga ee lagula dagaalamo. waxaana sheegtay caruurtu inay kusoo dhalanayaan iyaga oo dhalan rogan. waxaana sheegtay caruur inay soo dhalanayaan caruur yaryar oo aanan lahayn goobihii ay ka saxaroonayeen iyo goobihii ay ka kaadinayeen midna toonna. waxaana sheegtay caruurtan inay u baahan yihiin in loo qaado cisbitaallo waaweyn si loogu soo jeexo. waxaana sheegtay intaasba in loo awoodin. waxa ay sheegtay caruurtaani inay dil ku xukuman yihiin oo aysan helayn waxyaabihii iyo imkaaniyaadka ay u baahnaayeen. cidda abaabushay hadda arrimahan waa ninkan. waxaanu ahaa Esios Caglione, waa ninka ku daadiyey xeebta Soomaaliya sunta. ninka labaad waa ninkan, waxaana la oran jiray Bruno Garielli, waana ninka soo heli jiray shirkadaha ku daadiya sunta. ninka saddexaad waa ninkan, waxaana la yidhaahdaa Giancarlo Marochino, waana ninkii khabiirka u qaabilsanaa ciidamadii Talyaaniga ee xamar joogay 1996, waana ninka soo daabuli jiray sunta. ninka ugu weyn ee Esios Caglione ayaaba la sheegay dowladii Soomaaliya ee 1996 ee u magacowday safiirka wareega ee Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya, wuxuuna uga faa'iideystay saxiixaas inuu Soomaaliya ku daadiyo sun. hadda ninkaas waxaa la sheegayaa inuu taajiray. waxaana la sheegayaa inuu iibsaday jasiirad yar oo cidlaa oo u bixiyey Navaza, wuxuuna sheegtay boqorka jasiiradaas. waxaanu hadda u raadiyaa inuu helo aqoonsi jasiiradiisa. waxaa looga fadhiyaa ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo inay saddexdaan soo taagaan maxkamad caalami ah si loogu maxkamadeeyo.